السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي يا مسانا وروكسدا كاميرا دي أنا قوس إلوني وأنا معنا يوتيوب وحسوق اليو وإذن سلامة عوض وربان إذن هاي عوض وحان إذن وذا هورت وايهين كورما سود وهذا سكسكراب نقول دير قرية كومنتيجنا واحقين يا محاسوق يسيني عوض وحان إذن هاي متانتيدي تحتلو mataanta igu wareeriseen oo muddo 5 bilood dhan ay i weydiiseen maaday kula dhalatay ma walaashaha aan horta dadka inay indhaha ka carbiyeysan yihiin iyo waxaan kala la ah inay run ka tahay maxaa run ah maxaana reed ah yaa lama ogo yaa waa fiirinayna aan fiirinay yaa talo wejigayga waan sii fiirshaa wallaahi bilaahi way agtoo maleen naftirkeygaa shaki igeliseen anaa cabsadaba wallaahi anaa cabsaday yaa anaa cabsadoo shakiyaa igeliseen xoogaa wejiga meesha igala soo booday wejiga xaliime axmed oo weyn uu ekaay halaas kaftan waaye kaftan lama rabo marka waxaa rabaa in lilaahi loo hadlo kaftanka halaasa nooga ekaado inaan kaftamana ma rabi waa kanaha gabartaa idiin wado waa salaamayaa waxaan joogaa guri oo wiilkayga marka maasha allah maasha allah maasha allah haysto qalabkaygii iyo waxaygii laakiin waxaan diidaa inaan ka baaqdo maasha allah barnaamijkan oo aan jecelahay because meel la gaaraayo ilaaha og anaaga la wadaago waa mid ka mid ah barnaamijyada psychologicalka ahaa oo raalli ahaada maanta meesha idin soo saari ma kari laakiin wejigayga iyo wejigeeda waa idin soo agdhigi doonaa ka baaqdaan diidahay maadaama haddaan sii sugo waqti dambe ay noqonaysaa marka salaamu calaykum soo dhawaada kulligiin horta soomaali maxamed mid aan idin sheego aamino muuse weheliya cadow horta waa naag sharaf leh sharaf iyo cisi ilaahayna sharafaa siiyey maasha allah gabar soomaaliyeed waaye walaashay macaan waaye walaalna waxaa u taqaaniin midda kale oo idinla dhalatay warkaas war jira ma ahan 100% dadka waxay ugu wareeriyaan aamino muuse maataa mase walaasheed qoftana la hadlaysa ma aamino muuse mase waa walaasheed waxaan soo galay 2021 bisha 6 bisha 7 toosa ugu soo biira tiktok waxaan ka soo jirshaa ma aqaan ma sheegi karo xaq soo jirsa hadii la yidhaha ma sheegi karo laakiin kulley inaan dad le maaragta codkeyga ku biiriyo aan horta usoo galay 100% haddii maanta lay dhihin beriyaa lay dhahaa waa lay waxantaa dadka igu dhadhowaata waxaa leeyahay isla dhasheen maxay isku yihiin ani ma aqaan waxay ka damacsan yihiin aamino horta raaliga ahaysaa mar walbana waxaan kusoo celceliyaa waryaada gabartaa igu dirina gabartaasi aniga shaqo isku malahnin bilaada kuwa isku ekaa karaan kulley idingana waa ogtaa qof magacii maamuus la waaye
waa laga yaabaa in la yidhaaho yaa dadaa yidhiin maxaa u dhihi weyse waana la dhaat aniga dad inaan sharaf darreysto ma rabi weligay meel islama fadhiisan mana is arkin marka aniga iska shakiyo aniga istaataabto dhah talow dadka waxay sheegaan cuudu billahi min ashaytaan rajiim aan isku naqday dadkii aniga yaqiinay oo intaasoo sana la deganaay aan waxaan ku yidhi maxaa waaye waxaa la sheegaya naftirkey waaba shakiyey mar walba waxaa igu soo naqda hadalkan waxay ugu dhaheen haa maxaa jira markaan idhi macnaha isku codegtihiin waana isshaabahdeen aniga ahaantay haddii laga hadlo ma ishaabahno codka waa laga yaabaa hadalka inaan iska leenaha yaa hadalka inuu iska dheerayna laga yaabaa oo hadalka iska leenahay marka waxaan idin dhihi lahay videoga hatee waxaa laga yaabaa si u duubaa inuu iska qaabdaran yahay iska dul qaata marka soomaali maxmed waxaan idin sheegaa aamina sharaf iyo cisi aan u hayaa waan fiirsan jiray waddankan waagaa imid social mediaha iyo telefoonka casriga iyo baashaalka amuuse jiray universal habeenkii la soo dayi jiray habeenkii aan sugi jirnay habeenkii maadaama aan sugayno maalintii raadi aan geysan jiray subaxii markaa ilmaha iskoolka geeyo ilaa galabta universalka soo galo anaa haysan jira tvga habeenkiina intuu waa kabriyaa fiirsan jira laakiin iyada universal uma shaqey jirin laakiin BBC aan ka dhageysan jira wax kala soco jira wararkeeda walaashay macaan aan sibood garaa jiray oo mar walba aan fiirsado haddii lagu yidhaaho yaa qof bulshada soomaalida magac ku leh hooyo ilaahay sharaf siiyey iyo heybad ma rabi inaan jaafeeyo 100% horta raalliga ahaa haysaa aan raalli kama yihin bulsho weynta soomaaliyeed hayreen markaa meel galo la yidhaaho talow aniga naftirkeyga wallaahi bilaahi horta qofta idin lahadlaysa aamina muusmiya wallaahi aniga waa u maleeye manay taas waa soo dhaweynaynaa aamina muus meeshaas marka hadlayso waan ku arkaa tiktoka laakiin tiktok live ma soo gasho waxaas waxay tiray ciyaalka yaryarka iyo dadka waxaan u dayey run waayo horta social media kulligiisba haddaan dana gaara ka lahayn faa'iido leeyahay male faa'iido male walaashay macaanne waa ka raaligelinaa walaashay waa ku jeclahay waa ku taageeraa walaashayaa tahay walaal soomaaliyeed qof iga kaa dhow male walaashay macaana tahay gabar soomaaliyeed soomaalida u dhaxayso hadaasaas naqa kara waa ii dhacale laakiin ma naqa kari yaa qof yuudeeda qof qaada ma karto waxaan kaliibkan usoo duubanay yaa 100% cabsi walaashay macaan haddii lagu yidhaaho lacala kumaanan anjaafeyn manan ku ajaafay dooni haddii la yidhaho waxaan dhihi lahay maya weligay haa kama soo bixin afkayga maya qofta ha ceebeynina amba ha ajaafeynina sharaftii cisi way ku jirtaa qofta walaashaa ah inaa xushmaysid xushmaday ku macaanta waa dadaa xushmeeyo markaan idhaahane waatan meeshaan ku jirtaa mar walbaan fiirsadaa maanta waxaan rabaa inaan barnaamij yaroo kooban halkaan idin kula wadaago oo ah wejigeeda psychological condition psychological abuse oo dadku isku sameeyaan oo la yiraahdo gaslighting afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa gaslighting laakiin af soomaali markii lagu sharaxo loo sharxi maayo gaas horta waa gaaskii waad iska garanaysaa lightingna waa dab ku shidad
laakiin wuxuu noqonayaa marka af soomaali loo sharxo qofka oo shaki laga geliyo badqabkiisa miyir qabkiisa iyo xasuustiisa waa weynaya soomaali badan waxaa aragnaa baraha bulshada inay dadka kaleeto ku dhahayaan hebel waa waalan yahay hebel ayaa waa waalan tahay laakiin inuu shaqaysan waaba karo iga go laakiin inuu wax qabsan karo waa iga gooye laakiin inuu wax baran karo wax noocaas oo kaleeta marka qofkii wuxuu kusoo aruurayaa shak maadaama uu iska qabo wuxuu kusoo aruurayaa inuu maaragtay waa waalan tahay waa waalan tahay waa waalan tahay inta la dhaho uu u qaata inuu waalan yahay asagoo aan waalayn dadka biniaadanka isku dabeecad ma aha wayna isku xadgudbaan way isku xadgudbaan oo dadka isku xadgudba dunida inta la wada joogo isku xadgudbaan xadgudubkaasna wuxuu keenaa dhibaato fara badan oo ayaga dhexdooda ka dhacdo dhibaatadaas faraha badan oo ayaga dhexdooda ka dhacaysana waxay keentaa inay dad fara badan nolosha ciriiri ka gasho oo ay noolaan kari waayaan qaar fara badan inay nafta iska gooyaan qaar fara badanna inay si xun iyo saxriir ku noolaadaan annaga waxaa ka mid nahay this kind of abuse noocaan abuseka ah bulshada ugu badan oo isku samayso walaashay kheyr allah siiyo run waaye qof dhan waaye maasha allah walaashayna waxaan ugu soo galay inaan la hadlo aniga dadka qaladka ka fahansan inaana ahaynin oonan marna aan saas dhehaynin mana ahan waxa aniga iska soo aliftay oo waxay dadweynaha bulshada soomaaliyeed sheegeen yaa alxamdulillah shukri yaa qof la arka wuxuu ilaahay siiyey inuu ku qanacsanaata fiican anigana waxaa ilaahay isiiyey waa ku qanacsanahay maasha allah walaashay macaan waxaan leeyahay horuu soco waan ku salaamaa waan ku jeclahay qalbigaygaa tahay nuurkaygaa tahay indhayga nuurkoodaa tahay xumaan kuuma quuro keep going